barasaabka gobolka Hawd Axmed Eegayare oo uu heliyo maayirka degmada Balli-Gubadle Cabdi Iimaan Jaamac ayaa si rasmi ah xilka ugu kala wareejiyay isku duwihii hore ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya gobolka Hawd Iid Ciise iyo isku duwaha cusub ee ay dhawaan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya soo magacawday gobolka Hawd Mustafa Yuusuf waxaana uu horeyn xafladaasi xil wareejinta hadal soo dhaweyn iyo sagootis bay isku jira ka jeediyay xogayaha dawladda hoose degmada Balli-Gubadle Saalax Maxamed Idris iyo maayirka degmada Balli-Gubadle Cabdi Iimaan Jaamac magaca gobolka Hawd ciyaaruhu ka yihiin kaalid koowaad sida darteed maanta waxaan Mustafa isaguna halkeedii aduna soo gasii qaadin Mustafa idna khayr weyn ilaahay u rajeenayna meeshana meel dhantay ilaahay geeyo Mustafa loo soo dhaweynaa waxaan sii ducaynaa sidweeyeen hore gobolka Hawd Iid Ciise oo wax badan soo qabtay intii uu joogay in badanna joogay sidoo waxaan ugu ducaynaa inuu ilaahay ugu bedelo meel kale oo ayaan ugu ducayno khayr qabta in bedelaaduna waa sunnaha dawladnimo Mustafa Yuusuf isduuha gobolka cusubna waxaan leenahay soo dhawow waxa laga baahanyahay halkii uu joojiyay Iid Ciise ka sii qaado oo horumar gaarsiiso ciyaartoyga gobolka Hawd waxa iyaguna halkaasi ka hadlay isku duwii hore wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya gobolka Hawd Iid Ciise iyo isku duwaha cusub ee ay dhawaan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya soo magacawday gobolka Hawd Mustafa Yuusuf hawshani waa sunna dawladnimo in xilka kala wareejiyo marna adiga lagu wareejiyo marna qof kale amba saaxiibka ayaa kulay Mustafa niga mafugo saaxiibkaygu ahaa oo aad baan ugu faraxsanayn aniga tii lagu wareejiyo Mustafa lagu wareejiyo aad baan u soo dhaweynayaa waxaan leeyahay oo kulay runaantii aan ku wareejinaya Mustafa maanta ciyaartooy maanta isku duuban oo isku mid ah ayaan ku wareejinayaa waxa kale ku wareejinayaa garoonka kubadda cagta ee ku yaala muxuu ahaay halkan inooga socda Iid Ciise horta isaga sharaf bay u tahay maanta in anigu bedelo waayo halkii uu nin kale ama isku grade ahayn ama isku ladahayn uu bedeli la isaga waxa uga sharaf wanaagsan inuu iskaranayaan in badan ay soo wada ciyaareen xilkaana markaa Iid Ciise wuxuu u arkay ama isduwii hore nin inaanu meel ka tagin maadaama nin in badan ay soo wada ciyaarayeen oo xilkii bedelay marka Iid Ciisena saasaan ugu sheegayaa in Allahumma salli ala Muhammad wada shaqaynta iyo in isgarab istaagana diyaar baan u nahay magaransa waxaan kalaan u mahad celinayaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo u horeeyo wasiirka dhalinyarada ciyaaraha Boos Mire kaasoo uu noo gartay nana biday aqoon inaan aqoontii uu nabiday iyadana aanu ka shaqaysiino taana diyaar baan u nahay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo hawlwadeenadeena aad baan ugu mahad celinayaa xilka ay magacaabeen in aad iyo aad dhamaantiin u mahadsantiin ka soo qaybgalayaasha xafladda dadka kale ina daawanaya taageerayaasha gobolka Hawd ee dal iyo dibadba leh kaysu duwahaana aad baan ugu faraxsanahay xilka la igmaday insha Allah taala anigoo ilaahay la kaashanayna waxaan diyaar u ahay inaan wixii awoodayda iyo aqoontayda anigoo xirfad gaar ah oo leh inaan uga faa'iidiyo gabagabadii waxaa madashaasi hadallo dardaaran iyo dhiirigelin bay iskugu jira ka jeediyay barasaabka gobolka Hawd Axmed Eegayare Iid Ciise runtii aad baan intii aan joogay iyo intii ka horeysaba aad buu soo shaqeeyay isaga waxaan leenahay waliba waxaan ku xasuusanaynaa garoonkan kubadda intii aan joogay sidii uu dabagalay iyo sida uu inuu in la hirgeliyo oo ugu dadaalay ayaan ugu mahad celinayaa iyo hawlihii kale iyo tartamadii uu qabtay in badan buu joogay waxaan leenahay wixii aad gobolka u soo qabatay way koogyihiin waad ku mahadsan tahay sunnaha dawladnimada waa meerto dawladnimada ayaa sidaasa shaqadii aad qabatay ee ummadda u soo qabatay waad ku mahadsan tahay waan adiga ku leeyahay Mustafa isduwaha cusub isaga waa soo dhaweynaynaa qalbi furan iyo niyad faraxsan baan ku soo dhaweynaynaa marka xilkana waxaan ku leenahay xil balaaran baa lagu saaray ilaahay ku fududeeyo waxa hawlo baaweyn baa ku hor yaala dardaarankayga halkan anigu ka gudoomiye ahaan waxa weeyaan waa doctor culayska gobolka saaran iyo ganaaxyada lagu xukumay iyo ilaa heer gobol ayaa la xukumay ilaa ciyaartooyga xabada waxaan ku rajaynayaa culayska inaad qaybtaada ka qaadatid sidii gobolka looga qaadi lahaa xayiraadda ee ay halkeedii ugu noqon lahayd inaynu ka wada shaqeyno anaguna waan kala shaqeynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay
waxaan weydiisanaynaa cafis in inoo fidiyo waana rajaynaya insha allahu inuu cafiskeenaasi waxaan kuula dardaarmaya Mustafa qasab maaha inaan koobka khasab ku qaadno haddaynu koobka qaadi weyno kubadda waa inaynu qaadnaa koobka akhlaaqda doorka dambe koobka akhlaaqda gobolada Somaliland waa inaynu qaadnaa taas waa kuula dardaaraya waxaan kale kuula dardaarayaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha adiga wakiiluga ah maxaa la yiraahdaa gobolka mas'uuliyadaadaas inaad garatid oo ku shaqaysid mas'uuliyadaadaas inaana cid kale mas'uuliyadaada ku shaqaysanin ee aad noqotid nin mas'uuliyadiisa ka soo baxa waana la isku xisaabtamayaa indhuhuna weyna eegayaan inaga waxay noqonaysaa mas'uuliyadaadaas haddii ay liicniin iyo daldaloole ay lagugu arko in mas'uuliyadda lagugula xisaabtamo waxaan kale ku dardaarayaa maalin qaranka wixii markaa jooga hawsh shalay waxa joogtay ciyaaraha ayaa socday dhamaanteed waynu isla wada qabanay maantana waxa socda qaranku markaa wixii joogun buu isugu tagaa maantana diiwaangelintii gobolkeena socda maxamed jiciir axmed TV qaranka Soomaaliland magaalada Balli Gubadle